ninkan kursiga naafada lagu riixayo waa Sheekh Axmed Yaasiin, mucjisadii Yuhuudda lagu imtixaanay. Waa ninka aasaasay ururka Xamaas. Waa maskaxdii bilowga iyo yagleelida dagaalamayaal dhalinyaro ah oo ilaa iyo haatan dagaal kula jira Yuhuudda. Halgankii ka soo bilowday dhalinyaradii dhagaxa ku dagaalamayay, hadda waxa uu marayaa iyagoo cir iyo dhulba ugu daatay Yuhuudda. Sheekh Axmed Yaasiin, ninka hurdada u diiday Yuhuudda, haddii uu naafo yahay iyo haddii uu baralees noqdayba, kama aysan reebin inuu noqdo ninka ay ka waabtaan. Waraysi uu bixiyay sanadkii 1999 ayuu ku sheegay in Yuhuuddu aysan sii jiri doonin wixii ka dambeeya sanadka 2027. Wadaadkan muslimka ah ee badbaadiyay dadka reer Falastiin iyo halgankiisii miro dhalay maanta ayaan sheekadan ku eegi doonaa iyo sida uu ku aasaasay. Waa ninka aasaasay ururka Xamaas. Waa maskaxdii bilowga iyo yagleelida dagaalamayaal dhalinyaro ah oo ilaa iyo haatan dagaal kula jira Yuhuudda. Halgankii ka soo bilowday dhalinyaradii dhagaxa ku dagaalamayay, hadda waxa uu marayaa iyagoo cir iyo dhulba ugu daatay Yuhuudda. Sheekh Axmed Yaasiin, ninka hurdada u diiday Yuhuudda, haddii uu naafo yahay iyo haddii uu baralees noqdayba, kama aysan reebin inuu noqdo ninka ay ka waabtaan. Waraysi uu bixiyay sanadkii 1999 ayuu ku sheegay in Yuhuuddu aysan sii jiri doonin wixii ka dambeeya sanadka 2027. Wadaadkan muslimka ah ee badbaadiyay dadka reer Falastiin iyo halgankiisii miro dhalay maanta ayaan sheekadan ku eegi doonaa iyo sida uu ku aasaasay ururkan. Sheekh Axmed Yaasiin waxa uu ku dhashay magaalada Aljura ee u dhow caasimadda Ashkelon ee Yuhuuddu ay maamusho. Waa sanadkii 1937. Isagoo 12 jir ayuu ka soo tagay halkaasi waxuuna yimid Gaza. Halkaasi waa meesha uu ku waayay lixaadkiisa. Waxauna markaasi wixii ka dambeeyay uu noqday nin kursiga dadka naafada ah lagu riixo markii uu ku dhacay cudurka shalalka ama qalalka. Xilligaasi kadib, Sheekh Axmed Yaasiin waxa uu ku koray halgan iyo dagaal dadkiisu ay kula jireen Yuhuudda oo markaasi bilow ahaa. Ilaa laga soo gaaro sanadkii 1987 markaasi oo uu ku fikiray sidii uu kaalin uga qaadan lahaa halgankan dadkiisu ay ku jiraan, maadaama aysan jirin dawlad awood badan oo ka jawaabta gumaysiga Yuhuudda. Axmed Yaasiin oo naafo ka ah inta madaxa ka soo harta ayaa go'aansaday inuu aasaaso koox ka hortagda gumaysiga Yuhuudda. Sheekh Axmed waxa uu aasaasay urur ka kooban dhalinyaro iyo wadaad soo celiya sharaftii iyo xorriyaddii ay haysteen aabbayaashooda. Waxaa meesha ka dhashay Xamaas oo aan markaasi haysan hub iyo saanad ay ku wajahaan Yuhuudda. Taa beddelkeeda waxay kula dagaalami jireen dhagxaan iyo weref si aysan marnaba u qaadan gumaysiga Yuhuudda. Sheekh Axmed Yaasiin waxa uu noqday bartilmaameedka koowaad ee Yuhuudda markii ay ogaadeen duumadan ku soo socota. Sheekh Axmed Yaasiin oo ah naafo kursiga wiiljarka ah lagu wado, waxa uu gaaray heer ay Yuhuuddu dhibsadaan maqalkiisa. Waa nin cuuriyaan ah oo aan lahayn socod, awood la sheega iyo muuqaal laga cabsado toona. Haddana Yuhuuddu waxay ka nacbanaayeen wax kasta. Dhowr jeer oo ay beegsadaan marna handadaan, alla waxa uu qadaray in ugu dambayn subax isagoo salaad fajar u soo jarmaaday in ay gantaal keligiis la egtaan Yuhuudda, halkaasina uu ku geeriyooday. Geeridiisa oo naxdin gelisay dadka reer Falastiin oo ku hurda kuna soo tooso harka Sheekh Axmed Yaasiin ayaa markii uu geeriyooday waxa ay galeen nolol mugdi ah. Laakiin halkaasi kuma ekaan halgankii dhalinyaradii uu aasaasay Sheekh Axmed. Sanadkan iyo sanado hore oo ay wacdaro u dhigeen Yuhuudda ayaa qeexaya jiritaankooda. Cashirkii Yuhuudda ay u dhigeen toddobaadkii la soo dhaafay waa mid laga sheekayn doono. Waa jabkii ugu xoogganaa abid ay la kulmaan Yuhuudda. Sheekh Axmed halgankii uu bilaabay waa mid guulaystay, laakiin guusha waxaa uga dhiman inay sax noqoto saadaashii uu bixiyay 23 sano ka hor. Axmed Yaasiin waraysi dheer oo uu bixiyay sanadkii 1999 waxa uu ku yidhi Yuhuuddu ma sii jiri doonto wixii ka dambeeya sanadka 2027 waa ay burburi doonaan.
xilliga uu qiyaasay Sheekh Axmed hadda waxaa ka dhiman wax ka yar 4 sano. haddaba dagaalkan hadda socda ma yahay kii lagu tirtiri lahaa? aragtidaada hoos nagula wadaag.